soo dhawaada channelka naga socotaan waa macallin channel haddii markii ugu horeysay channelka fadlan subscribe inoo saar waxaan balaqayn doonaa wararkii ciyaaraha asxaabta soo dhawaada wararkeena ciyaaraha ayaan sii wadani doonaa halkaan la socotaan waa macallin channel waxaan ognahay in ciyaaro aad u xiiso badan ay dhaceen ayadoo runtii food is dareen kooxda Norwich City kooxda Arsenal Newcastle United iyo Man United oo runtii ognahay inay ahayd ciyaarta ugu xiiso badan oo ugu daawasho badneed sidoo kale Man City ay dardartay kooxda Leicester City iyo wacdaradii ciyaaryahanka reer France ee Paul Pogba ayaan soo qaadan doonaa aan ku bilowno kooxda Arsenal ayaa runtii ciyaartii afraad ee horyaalka Premier League maanta ciyaartay ayadoo garoonka Emirates Stadium ku soo dhaweysay kooxda Norwich City halkaasoo runtii kabtanka Aubameyang uu runtii ka farxiyay taageerayaasha kooxda Arsenal asagoo hal gool runtii oo dhaliyay kooxda Arsenal ayaa waxaa moodaa in 3 dhibcood oo nadiif ah ee Arsenal soo hooysay 4 ciyaarood kadib waxaan ognahay in runtii ciyaartan ahayd ciyaar indhaha lagu wadahay inta badan oo lagu qiimeynayay wiilasha Arsenal ee tababaraha Arteta ayaa waxaa moodaa in ay ceebtii iska dhaqeen oo ay dhaheen maya waxaas wax dhacay ma aha wax si socon karana ma aha ayadoo ognahay in ciyaarahanka qadka dhexe Thomas Partey uu dib u soo laabtay Lacazette ayaa runtii qaybta benji ku soo bilowday asoo ciyaarta aan la soo gelin halka Odegaard uu kamid ahaa safka hore ee kooxda Arsenal Smith Rowe ayaa gadaal laga keenay runtii dayarka Tomiyasu ayaa runtii oo ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee soo saxiixay kooxda Arsenal ciyaarta ku soo bilowday ciyaarta aan ciyaar xiiso leh waxaa kaloo qaybta benjiga galay goalkeeper reer Germany ee Leno ayadoo runtii taasi micnaheedu tahay in la braaweynayo goalkeeper cusub ee Aramse sidoo kale runtii ciyaartan ayaa ahayd ciyaar in badan hindhaha lagu wadahay inay sheegnay taageerayaasha Arsenal ayaa runtii garoonka joogay inta badan ay ko runtii qiimeynayay kooxdooda Arsenal Arteta ayaa waxaa moodaa hadda inuu ka degi doono pressure-ka kadib markii uu adkaaday hal eber kooxda Norwich City taasoo ka dhigan in joogitaanka Arsenal ee tababaraha reer Spain ee Arteta ay runtii meesha ka sii bixi doonto ayadoo la sheegay inuu tagi doono tababarahan ayaa waxaa moodaa in ciyaaraha loo qabtay ay foodan ugu sudaan dhammaantood ayna ahayd ciyaartan tii ugu horeysay oo lagu qiimeeyay Arteta si walbaba Arsenal ay ceebta iska dhaqday oo hal eber ku badisay goolkaas uu dhaliyay kabtankooda Aubameyang aan ku socono ciyaartii ugu xiisaha badneed uguna daawashada badneed galabta waxay ahayd ciyaarta Newcastle United iyo Man United taasoo runtii xitaa istaajisay hooyada dhashay Ronaldo Cristiano Ronaldo ayaa runtii muddo 12 sano kadib ku soo laabtay Old Trafford safta ciyaartiisii ugu horeysay maanta kadib markii uu kaga soo biiray kooxda Juba ciyaaryahankan reer Portugal ayaa inta badan calaamad su'aal la saarayay inuu wacdarihiisa goolasha uu sii wadin doonin laakiin waxaa moodaa taasi inuu meel iska dhigay oo runtii balanqaadkii uu sameeyay taageerayaasha United uu galabta bilowday Ronaldo ayaa 2 gool saxiixday asagoo runtii guul aad muhiim u ah oo hindhaha caalamka ay wada fiirinayeen galabta uu horseeday kooxda Man United oo 4-1 kaga adkaatay kooxda Newcastle United halka Bruno Fernandes uu goolashiisa sii wato Lingard oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolkii ugu dambeeyay dhashtay ayadoo la socona in Ronaldo runtii taageerayaasha Man United oo garoonka soo wada buuxdhaafiyay dhammaantood ay sheegeen inay runtii aad ugu faraxsan yihiin soo laabitaanka ciyaaryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo waxaan sonaa in runtii taageerayaasha inta badan ee garoonka joogay ay wateen fanaanada lambarka 7 ay ku qoran tahay magaca Ronaldo taasoo runtii lagu micneeyay inay aad ugu faraxsan yihiin soo laabitaanka ciyaaryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ee Old Trafford Solskjaer ayaa waxaa moodaa in hadda uu line-upkii koowaad ee kooxda United uu helay walow runtii haddii uu soo laabto ciyaaryahanka da'da yar ee reer England ee Rashford loo kala ogaan doono line-upka rasmiga ah ee kooxda Man United sidoo kale tan United ayaa runtii la sheegayaa in Ronaldo naftiisa uu runtii balanqaadkii u sameeyay uu ka soo baxay kooxda taageerayaasha kooxda Man United Ronaldo ayaa sheegay inuusan dalxiis u imaanin Old Trafford uu laakiin u imaaday inuu shabaqa taabto uu runtii kooxda u horseedo guulo waaweyn Ronaldo waxaa moodaa balanqaadkaas inuu ka soo baxay oo 2 gool u saxiixay kooxdiisa cusub ee Man United oo kamid ah kooxdiisii ugu horeysay kooxdiisii labaad aan dhahay marka laga tago Lisbon waayihiisa ciyaareed ka soo bilowday muddo 12 sano kadib uu dib ugu soo laabtay ayaa waxaa moodaa in maanta ay ahayd maalin aad u farax badan ayadoo runtii aad ugu farxan taageerayaasha kooxda Man United aan ku socono ciyaaryahanka reer France ee Pogba ayaa wuxuu sameeyay wax runtii aad loola yaabo
asagoo runtii ciyaaray 4 kulan oo horyaalka Premier League ah ayaa ciyaaryahanka reer France wuxuu sameeyay 7 caawin oo runtii uu caawiyay 7 gool ayuu caawiyay ayadoo runtii ka dhigan goolasha ay dhashtay kooxda Man United inta badan asaga uu lugtiisa ku saxiixay waxaa kaloo runtii mucjiso ah inta badan ciyaaryahanada runtii dadka ciyaaraha inta badan falooda ay runtii dul istaageen Pogba horyaalkii hadda dhamaad oo dhan wuxuu sameeyay 6 caawin halka hadda 4 kulan 7 caawin sameeyay taasoo micnaheedu ka dhigan in Pogba uu sanadkan diyaar yahay uuna diyaar u yahay inuu ciyaaro waxaa ognahay ciyaaryahankan reer France in joogitaankiisa Old Trafford mugdi badan uu ku jiray calaamad su'aalna weli saaran tahay ayadoo la xiriirinaya kooxda Real Madrid halka runtii Paris nafteeda ay u sameysay ballanqaad aad u weyn oo mishaar waali ah loo ballanqaaday waa haddii uu si xur ah ugu biiri doono kooxda Paris marka hadda qandaraaskiisa ka dhiman wax ka yar hal sano u dhamaado Pogba ayaa inta badan runtii lala xiriirinaya kooxda Real asagoo runtii sheegay in halkaas uu kula midoobi doono ciyaaryahanada reer France sida Benzema afkoor ka ciyaara Mbappe daayarka Paris oo asalna sheegay calaamad su'aal saaran tahay joogitaankiisa Paris waxaa moodaa in hadda Pogba uu wacdar ka dhigayo Old Trafford uu ku jiro waayihiisii ugu fiicnaa ee kubadda cagta ee Somara Pogba ayaa runtii saynay sheegnay 7 caawin sameeyay afar ciyaar oo horyaalka Premier League uu saftay ciyaaryahankan waxaa moodaa in uu aad ugu fiican yahay uuna u soo diyaar garoobay horyaalkan asagoo runtii shaqo diyaar u ah ayaa haddana waxaa moodaa inuu ka fiican yahay sidii sanadkii hore lagu bartay oo uu ahaa nin aad u liita dhan kaleeto Man City ayaa Tottenham waxaan rabaa Man City ayaa kooxda Leicester City kaga badisay 1-0 goolkaas oo u saxiixay dayarka reer Portugal ee Bernardo Silva ciyaaryahankan ayaa waxaa la xiriirinayay inuu macsalaameyn doono kadib kusoo biritaankii uu kaga soo biiray ciyaaryahankii hore ee Aston Villa Jack Grealish kooxda Aston Villa oo kusoo biiray kooxda Man City ayaa waxaa mugdi la gelinayay joogitaankiisa kooxda Man City ولو maanta uu kusoo bilowday ayaa hal gool u saxiixay 3 dhibcood oo nadiif ah uu qaaday ayadoo ognahay in Man City ay 3 dhibcood muhiim u ahayd koox adag ay ka hor imaadeen waxaa moodaa in iska dhaqeen ceebtii Tottenham halka Tottenham nafteeda runtii Crystal Palace ay 3-0 u saarisay taasoo macnaheedu ka dhigan inta baraha reer Portugal ee Nuno uu la kulmay guuldaradii ugu horeysay ayadoo runtii ka dhigan in horyaalka Premier League aan isku halayni karin waxaa moodaa Tottenham in runtii aad looga cabsanayo in sanadka horyaalka ay hirigelin doonto taasoo runtii Crystal Palace meel dhigtay maanta halkan astaan waa macluumaad channel asxaabta haddii tahay markuu horeysay channelka aad soo booqatid fadlan subscribe inoo sar